بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. labada darisee la qoondeeyey walaalku sheegay waxay ku saabsan yihiin الشبهات والشهوات. madmadowga dadka diinta laga geliyo iyo dariiqa xaqa ah iyo shahawaati nafs, waxyaabaha naftu ay jeclaysato ee baadinimada keena. midna xagga caqiidadu galaa labadan shay, midna xagga acmaasha ayuu galaa inta badan. waxay culammadii hore odhan jireen labadani waa aslaa shari fi lwujuudi alinsaani bay dhahaan. sharka bini aadamkaba labadan baa u asala. waa laba xanuun oo ku dhaca qulubta qofka bini aadamka ah oo ka fogeeya ilaahay cabsidiisa. ilaa xad ay bacd alculamaa ku tilmaamaan afdalu nnaasi man lam tufsid الshahwa diinah walam tazil الshuhba yaqiinah. dadka waxa u fiican bay dhaheen ninkaan diintiisa aanay shahwaatu nafsigu ka fasahaadin ama yaqiintiisa iyo iimaankiisa aanay ka khalkhalgelin shubahaadka, ee aakhiro wuxuunbaa badbaadaya. yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. waddannada muslimka markii la joogay, marka shubahaadka laga warramo inta badan waxay ahaan jireen shubahaatu ahlilbidac. dadka bidcaadka ku dhacaa waxyaabaha qaldan ay ismoodsiiyaan inuu sax yahay ee ilaahay ku caabudaan. laakiin duulkiinna halka jooga waxay inta badan iyagu la kulmaan waa shubahaatu ahlilkufr. waa madmadowga dadka laga gelinayo rumayntay diintooda rumaysan yihiin, hadday tahay arkaanuliimaankii iyo hadday sharaa'icda tahayba. ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rusushiisii iyo kutubtiisii iyo qiyaamaha iyo jiritaankiisa iyo qaybkoo dhan. shubhadu marka fi luga waa aliltibaas waalikhtilaat. waa shaygoo dheehma xaq iyo baadilku aad kala saari kari weydo, oo qofka maxaa xaq iyo maxaa baatila waxyaabaha u kala caddayn kari waaya. haddaba shubhadu inta badan aynu tilmaamayno ama aan rabno inaynu wax ka tilmaamno waa shubahaadka caqliga ee diiniga ee caqadiga ee qofka diintiisa ka xumeeya. waana xad hadduu shubhadaasi qofka galo waa marad. ilaahay uu qur-aanku inta badan munaafiqiinta iyo kafarada iyo ahlu shakiga iyo dadka noocaasiya u kaga warramo fii quluubihim marad fazaadahum allahu marada. ilaahay ku tilmaamayo waama aladiina fii quluubihim marad fazaadathum rijsan ilaa rijsihim wamaatuu wahum kaafiruun. waa marad marka koowaad inta badan masaa'il fudud ku bilaabma, laakiin marka dambe diin la'aan dadka bada. marka dambe diin la'aan dadka bada. kama hadlaya in badan shubahaadkaasi iyo radintooda. waxaa laga yaabaa goobo aan tan masaajidda ahayn ama meelo kale in lagaga hadlo, laakiin waxaynu tilmaamaynaa feejignaanteeda iyo sida loo dawayn karo.
oo asiiba dadkan waaweyne waayeelka wax iyaga la gudboon ubadkii iyo dadkii in looga feejignaado mashaakilka kan iyo siyaabihii loo daweyn lahaa shubahaadka qaarkood waa طائف من الشيطان waxaa ku filan alisticaada waa waxaan bini aadamka qalbigiisa degana khawaatirun ku soo dhacdaya oo inta badan qofku iskaga difaacayo sidii xadiidkii nebigu uu sheegayey inaad shaydaanka iska naartid acuudu billaahi min ashayطaani الrajiim shubahaadka qaarkoodna inta lagu celceliyo jawaanib badan laga keeno ayay degaan dadka badh kuwaasi waxay u baahan yihiin fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun in dadka aqoonta u leh waxa kan la weyddiiyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala kitaabka qur'aanka ah ma jirto iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam gaala shubha ay soo arooriso aanu ka jawaabaynin ilaahay nebigiisii moxameda calayhi salaatu wasalaam ba wuxuu ku leeyahy walaa ya'tuunaka bimathalin ilaa ji'naaka bilxaqi wa axsana tafsiira wax kastoo ay kuula yimaadaan waxaannu kuu keenaynaa baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala wax fardaamin kara oo xaq ah kitaabkaasi ilaahay wuxuu ku tilmaamay wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay wahudan waraxmatan wabushraa lilmuslimiin kitaab baannu kuu soo dejin wax walba kuu caddaynaya baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala wax walba caddaynaya oo hanuun iyo naxariis ay ugu sugan tahay dadka rumeeya dhibteennu se waxay u badan tahay kitaabkaynu haafilkannay oo wixii wax dawaynayey ayaynu moogannahay waxaa laga yaabaa dadka intiisa badani inaanay akhriyi karinba inta akhriyi kartaana inteeda badani inaanay fahmi karin inta wax ka fahmi kartaana in badanoo ka midi waxay u baahnaayeen inaanay kala soo bixi karin ka istimbaati karin inaad darajadaa gaadhaa waa mas'alo dambe laakiin waxay leenahay xaqiiqa ahaan wixii loo baahnaa isagay ku jiraan rusushana hadduu kay la hadlayaan mulxid yaana ilaahay jiritaankiisa rumaysnayn iyo hadduu yahay ku ilaahyo badan rumaysan iyo hadduu yahay ku aakhiro inkiraya iyo hadduu yahay ku rususha inkiraya qur-aankan baa la yidhi nebiga kula hadal calayhi salaatu wasalaam lama odhanin meel kale deliil uga baadi doon waayo rususha deliillo kale waxyigaasaa la soo siiyey taa macnaheedu waxa weeyaan dadkan dhammaantood bikulli fi'atihim isku dar hadday malaaxida yihiin hadday ilaahyo badan caabudayaan hadday aakhiro dafirsan yihiin hadday rususha dafirsan yihiin hadday malaa'igta dafirsan yihiin intaba ilaahay wuxuu kula hadlayaa qur'aanka kan taa macnaheedu waxa weeyaan intaas oo mas'alo oo la tilmaamayo xujadii aad u baahnaydee dad lagu qancin kari lahaa waxay ku jirtaa qur'aanka kan waxay ku jirtaa qur'aankan laakiin dadka markaa diintoodana jahli kaga dhaco isla markaana fitankana ay mucrad u yihiin ay u banbaxaan meesha beledu taallana siduu u badbaadayaa su-aashu waa kaas yacni waxaa laga yaabaa sayfid shal ciddii ku jirtay waddankiisii iska joogtay dad isku wada diina oo caqiido qura wada rumaysan oo caynkani aqoon badan ba ayaanu lahaynee bulshadaa uu iska dhex socdo inuu badbaadayo laakiin markaad adiga iyo ubadkaaguba u soo banbaxdeen meel kale wada diinah bale diimaha dagaal lagula jiro bale waxay yidhaahdaan trendka ugu badan hadda ee la filayo sanawaadkan inuu kor u socdaa waa 3 qadiyadood bay yidhaahdaan
waa atheism qadiyadda diinlaawanimada iyo ilaahay ma jiradu kor bay uga socotaa galbeedka qadiyadda shuduudka iyo ragga ku kaaftoomaya waxa la mid ah iyo faafinteeda iyo dhigisteeda iyo qaanuun samaynteedu kor bay u socotaa qadiyadda mukhaadaraadka iyo taqniinkeedu in la qaanuuneeyo stabiskeedii baa bilaabay iyana kor bay u socotaa waxaan filayaa wakhti aan sii fogayn inay mukhadaraadku la noqon doonaan sida khamriga iyo sigaarka iyo kuwa dushuun lagaga qori doono waa khatare naftaada ka ilaali iyo waa lagu dhintaa iyo waxaa inta dusha lagaga qoro in la odhan doono xorriyadda dadka iyo xuquuqdooday ka mid tahay oo ay dadku iibsan doonaan saddexdaasiba xog bay uga socdaan galbeedka saddexdanina waxay ku saabsan yihiin labada mas'ale aynu tilmaamayno darsigeennan iyo ka dambeeya saddexdaba dawadoodu ilaahay kitaabkiisay ku jirtaa laakiin innaga markaa waxaa ku kulmaya dadka kan jahlun biddiin oo ah qofkani wuxuu diin u haystaa xoogaagii uu maqmaqli jiray reerahooda uu ka soo maqlay berigii uu waddanka joogay wixii uu meelaha ka maqmaqlay wax sax iyo wax qaldanba laakiin meel la taqniiniyey oo la nidaamiyey kufriga iyo sida loo dhigayo la taqniiniyey xumaha iyo sida loo sharxayo wax walba xorriyad iyo xuquuq laga dhigay oo qaab xorriyad bini'aadam iyo xuquuq bini'aadam ah loo soo bandhigayo oo shubhaadkaasi tiro badan iyaan iyo sii laysaga celin lahaa waa adagta qofka ahlucilmiga waa laga yaabaa masaa'ilka qaarkood inay mugdi ka galaan hore u garan kari waayo laakiin dee masalaad kun daliilu haysata xataa haddaad hal masale ka garan kari weydo wax badan qofka kuma samaysa saa ogeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah waalraasikhuuna fi lcilmi yaquuluun aamanaa bihi kullu min cindi rabbina kuwa raasikhay baa ilaahay yidhi iyagu wixii masaa'ile xagga alle ka yimi way tasliimaynaya xataa hadduu masalada hore u garan kari waayo dee masaladaad kun adilla haysato hal shubho loogama tago haddaba hadda waxaa badan nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii uu tilmaamayey xudayfata bnulyamaan saxaabiga la yidhaahdaa wuxuu yidhi dadku nebiga khayrkay weydiin jireen aniguna sharkaan weydiin jiray buu yidhi anigoo ka cabsi qabo sharkaasi inuu soo gaadho dabeetana khayr baannu hadda haysannaa khayr ma ka dambayn doona shar ma ka dambayn doona haabuu nebigu yidhi khayr ma ka dambayn doona khayr baa ka damba fiihi daad wuu soo waday nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu markii dambe ku yidhi waxaasoo dhan waxaa ka sii dambayn doona ducaatun calaa abwaabi jahannam man ajaabahum ilayha qadafuuh duul jahannamo dadka ugu yeedhaya maalan ilxaadka oo kale taariikhda dheer oo bini aadamku ka mid yahay oo qaybo falaasifada ka mid oo mulxidiini way jiri jireen laakiin mulxidku kuwa aan ilaahay rumaysnayn siday u noolaayeen filosofkii holandiis miyuu ahaa sbanuza la odhan jiray ayaa wuxuu leeyahay cala almulxid assumtu waalictizaal buu yidhi assumtu waalcusla waxay ahaan jirtay buu yidhi qofku markuu shakigu galo ee waxa kan uu ku dhacaan inuu iska aamuso oo keli iska noqdo nolosha ka qanco oo waxa kan waayo qofkaasi tuunal madow buu galay tanal madow noloshoo dhan baa mugdi noqonaysa sababta waa maxay qofkani wuxuu garan waayayaa waayo amaan hiya maxaanu noolay maxaan halka ka qabanaya ka shaqaynaya xagaa ku socdaa xagaa ka yimi noloshu maxay tahay therefore wuxuu ka baxayaa noloshoo dhan wuxuu arkayaa meaningless alxayaa kullaha maxaan qiimo lahayn buu u arkayaa noloshoo dhami dhadhan yeelan mayso inaad adugu tidhaahdo ilmo muxuu wax u baran waaya muxuu shaqtay mise arkaba inay qiima leeday wuxuu arkaa inuu dhintaa inay ka roonto inuu noolaado waayo ka rumaysan yihin kadeedkeedaabaad ka raysan lahay haday kaa baxdo noloshan warwarkeeda iyo fikirkeeda iyo kadeedkeeda
waa laga yaabaa inaad la yaabtaan laakiin waxaa laga yaabaa kuwa yarare gurigiina jooga haddaad weydiisay inuu ku leeyahay intaasoo goorma isku dayay oo sidhi ku fakeray ma isdishaa baan ku fakeray kuwa waaweyne brofesorada ayaa kuwan baasaa u fakera haddaba hadday waagaa hore ahayd waxyaabo qof intuu shakigu ku dhaco uu meel cidlaa iska fadhiisto ama isagoo isku mashquula ama istila ama nimka waxay noqotay meel ducaad preachers dad baaba faafinayo ku dhawaaqayo oo xuquuq ka dhigayo oo le bini aadamku xaq buu leeyahay inuu diimaa ka tago bini aadamku xaq buu leeyahay inuu shudu sameeyo bini aadamku xaq buu leeyahay xorriyaad iyo xuquuq iyo kan iyo looyaris iyo qawaaniin iyo dawlado iyo mujtamacaad dhan oo xumaha gaadhgaraynaya oo ilaalinaya oo dhigaya ugu horrayn ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamay horta inaynu ilaahay barino rabbanaa laa tuziq quluubana bacda id hadaytana wahab lanaa min ladunka raxma innaka anta alwahaab inaynu ilaahay weydiisanno laa tuziq quluubana bacda id hadaytana ilaahayow intaadna hanuunisay kadib quluubtayada ha weecinnin kuwa ambada ha naga dhigin shubahaadku haddaba laba goor bay dadka wax yeelaan qilat alcilm aw dacfi albasiira bay yidhaahdaan aqoon darro ilaahay waxyigiisa loo aqoon daran yahay iyo aragti xumo nolosha lagu aragti xun yahay ama basiirada qofku iyo tadabburkiisa uu liito waayo ilaahay wax kasta oo diintiisa khilaafa wuxuu ku tilmaamaya in yattabicuuna ila adanna wama tahwa alanfus in yattabicuuna ila adann waa mala'un waxa ay raacayaan baa ilahay leeyahy washbuhaat waa waxay ismoodsiiyeen xaqiiqa ma jirto iyo wamaa tahwa alanfus waxay naftu doontay in nafta loo siiyo freedom inay waxay doonto samayn karto qofku wuxuu doono inuu tijaabin karo cabbi karo fuuli karo wuxuu doono inuu samayn karo ilaahay wuxuu ku tilmaamay markaa dadka waxyiga diidani waxa ay rabaan waa labadan waa dadka madowga ku sugan ay professor weydii mulxida what is the meaning of life day noloshu maxay macno leedahay waa maxay macnaha noloshu maxaad u nooshay waa no answer cid ka jawaabi kartaa ma jirto waayo allihii bini aadamkana abuuray baa ka jawaabi kara un waxa loo abuuray gaadhigaa ninkii sameeyuunbaa kuu sheegi kara waxa loogu talagalay shay kasta ciddii samaysuunbaad taqaanaa laakiin shayga la sameeyey isagu ma yaqaano wuxuu u joogo therefore markay waxyiga ilaahay diidaan waxay ku soo noqdaan uun mas'ale ah lama garanayo jawaab lama hayo ma la rajaynayaa in jawaab la helo maya iyana ma jirto waayo wuxuu hadduu maaddadan hor taallee laabka la geliye la wadwado hadduu dhaafo waxaa ka dambeeya jawaab ma leh cidda ka jawaabi kartaan waa alle subxaanahu wa tacaala sida ogeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa walaa tattabici alhawa fayudilaka can sabiili illah ina aladiina yadiluuna can sabiili illahi lahum cadaabun shadiid bima nasuu yowma alxisaab waxay ugu sii daran tahay lumista caynkaasi iyo marka haddana inta la qurxiyo magac kale la saaro bini aadamku bay yidhaahdaan abuurkiisa waxaa ka mida bini aadamka oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku abuuray ayan kaan ha ahaadee xumaha inay naftu diiddo ilaa xaduu nebigu leeyahy alitma maa xaaka fi nafs inay naftu diiddo sidaa ogeed bini aadamku isagoo raba inuu xuma sameeyo ma yidhaahdo xumaan samaynayaaye jas magac kaluu bixiyaa suu isu qanciyo maalan dawladahani markay
dawlad yaroo miskiinadan waxba aysan lagu duulayo ma yidhahdaan tan dawladda yar baanu afka soo jebinaynaa ama lama yidhaahdo shidaalkeedaan rabnaa inaanu soo qaadanno ama inaanu soo boobno waxaa la yidhaahdaa shacabka xorriyadda la siinaya iyo dictator baa magac kalaa loo bixiyaa wuxuu isku qancin karo qofkiiyo u aqbali karaa lagu tilmaamaa xumaha marka la tilmaamayo la odhan maayo waa xumo waa xorriyad iyo waa xuquuq iyo erayo kaloo bini aadamku uu jecel iyo agtiisa qiimo ka samaynaya ayaa dheeha kalaa la saara si awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy afaman zuyina lahu suu'u camalihi fara'aahu xasana faina allaha yudilu man yashaa wayahdi man yashaa ilahay wuxuu tilmaamayaa ma mid loo qurxiyey camalkiisii xumaa oo u arkay inuu wax fiican yahay camalkiisii xumaa baa loo qurxiyey markaasuu mooday wax fiican inuu yahay kaa iyo dee ninka xaqa arkaya may siman yihin ilaahay baa faina allaha yudilu man yashaa wayahdi man yashaa idan ayuha alaxiba maanta dunidana aa ku nooshihiin kastoo laga yaabo dhul fog oo aydan filanayninba in qurunkani gaadhay waayo dunidu badkan mubaashirka iyo tv-gan iyo netkan iyo waxaan isku xidhan dunidii waxay ka dhigtay maxay meel isu furan waxay idhaahdaan taariikhdii hore bini aadamku cadowgiisa dagaalkaasuu isaga ilaaliyo qalcad buu samaysan jiray bay yidhahdaan qalcada iyo suuqa dabeetana inta gudooda la galo dee ninkan faraska watiyo seefka watiyo leebka watiyo wax wataan uu soo gaadhay xadaaradda waxay gaadhay bay yidhahdeen hubkii la samaystay qalcaddaa in la dumin karo ama madfaca noqoto ama dayuuraddan iyo waxna noqoto marka ma jiro nin meel isku qarin karaa oo oodan karaa markii hore kale afkaarta iyo waxaasina cidda meel haddaad tidhahda ha iga soo gelinoo xed aad ka samaysato xuduud yeelato oo aad u diiddo dadkaasi inaanay fiisa la'aan meeshaada ku imanin waxay ahayd maca afkaartiisa inuu kaa joogo maxay halkaa uu kaa joogay teknolojiga cusub wuxuu sameeyey inaan ninnaba meel wuxuu ku qarsan karin ninnaba markaa gurigii aad adigu dhisatay carruurta iyo islaanta ku xaraysataa laga dabagalay iyadoo aan cidina adiga fasax ku weydiisanin dabeetana waxay u baahdaan oo dhan meesha gudaheeda bahalka yarow gacanta ku sito ayuu ugu jiraa marka meel badanoo lagu dhuuntaa ma jirto laakiin wax waliba xal bay leeyihin waxa uu dadku u baahan yahin waxa weeyaan mushkiladdii waa tanoo waa aragnaaye xalkeedu muxuu yihi inaynu isdhiibnaabaa xalkeedu qur-aanka ilaahay wuxuu tilmaamayaa wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waxay dhahaan labadan mas'ale aayaddana ay sheegtay labadan xanuun aynu sheegnay waa dawadooda ashubahaat washahwaat shahawaatu nafsina asabr ayaa lagu daweeyaa bay yidhaahdaan waa can ilmacsiya iyo maladaadkeeda in laga sabro cibaadada in lagu sabro sabr baa lagu daweeyaa bay yidhaahdaan tan kalena dee yaqiin baa lagu daweeyaa yaqiinku adille ku dhisan caqiida lagu daweeyaa waa in shubhada tan qofka qalbigiisa laga saara marka cilaajka naafica ahi inta aynan shubahaadka xabad uga hadal aan la odhanin ilxaadka maxaynu ka nidhahnaa kaa maxaynu ka nidhahnaa kaa maxaynu ka nidhahnaa kaa maxay intaanad waxaa ka odhanin waxaa ka horreeya asaaska inaad binayso asaaska inaad binaysaaba ka horraysa oo ah dadkanaynu dhalle iyo ummaddeenna iyo nafteennaba inaynu iqaamatulxuja cala annaas samayno inaynu marka hore dadka diinta caqiidadooda dhisno intaynan shubahaad ka reebin qofku hadduu caqiidadiisu si fiican u dhisanto shubhada wuu iska celin karaa laakiin haddaan usuushaba dadkan la barin shubahaadkana loo bandhigo waxaad rajaynaysaa muxuu noqonayaa marka ilahay qur-aanka wuxuu leeyay faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbik
وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم بربع إلهي لي يقرأ أنه لا إله إلا الله أقوم بي أباهم إذا وحلنا أغهرين شيء كوان وإقامة الحجة على الناس وضدك أصول العقيدة إن نوردقنا أصول العقيدة إن نوردقنا دانا دوردقين وأدك صدح ذا وحان شيء مدنا بينك كعلسه الله يا صدح ذا بين هذا تقول نعبته ما أقول ملح نقضين أطربين الشوات كبيرين أطربين إنه دروغستي نوع نقضين أطربين لكن كاسي وواحد شيء يسي واحد سمينيسا ما تلماميا واحد سمينيسا كواد علاج هي وحي هي إن عقيدة صحة إن مركه هذا التمر عقيدة صحة وإلهي كتاب كيسا أدلة كفلا أديت أدلة جريتان كالكسابسا أديت أدلة كسابسا صدق النبوة أديت أدلة كسابسا قيامها أدلة دوباهي هذا حلالية وحين مسألة كورمينا ما غيبها أتا مشاهدات وحي دون تبها النقطة الدلة ديدا وعقلية انت إن شرعي يوتقين وهي قرآن كندتك اللي قولها اللي ما بيروا ميسنين مركة هوري نبي محمد قالوا يجيب سو قال ما يهندتكم يبتنا قرآن بس يدو يصدا كنا بالا لها قال كان القرآن نمع السوغان أفروا ميسنين بالا وحلة المامي مسائل كان هنا اللوتشكيين وعقلي يسجليا inay ka dhaadhicinayaan ilaahay jiritaankiisa iyo rasuulka rasuulnimadiisa iyo aakhira jiritaankeedaba isagoo gaala lagu la hadlay inaga waxaynu haysanaa quraanka in dadka muuminiinta lagu la hadlo gaalka maxaa lagu la hadlaya markaa hada wax kale keenaya ilaahay nabi maxaa quraanka buu dhibay yiri ku dheh qul meedana ku taala ku dheh oo saaw sheeg haday saa ku yiraahdana saa ku dheh shubahaadkooda ilaahay quraanka tirinaya saasay yiraahdeen saade baa ilaahay leeyahay saasayda waxay shubhay yiraahdeen quraanka dhexdiisa ka helaysa oo ilaahay ka jawaabayo subhanahu wa ta'ala idan waxaan leenahay aqiidadan wixii lagu dhisi lahaa ee gaal iyo muslimba loogu dhisi lahaa loogu sheegi lahaa dad qof rabto inaad diin u sheegto waxa ugu fiican aad u dhiibto waa kitaabka quraanka taa luqa carabeed garanayn bal ala aqal kitaab tafsiir oo afkiisa ku qoran inaad u dhiibto ahsan shay أما بروفيسور هذا أما وحدورا هذا ونكليرا كنت تخصص أما وحدورا كنت تخصص إلهي قف كان أبو ركبو سودتشي لو ما أورنا هذوك عقلي جاك وحقد ضيد يو هذوك وحقد عنده عندنا كم أورني لكن واحد نوبه هنا إنه الكتاب كم فهمنا مرك دام يستقل لوجو طلق علي قال يا مسلم بين لوجو الله الله وحلاقو شيء وحي آدم دلين لوجو الله الله يوحي جنبا كاتر سنة kitaabkan waxaynu u baahannahay asalka ah inaynu dadka u dhigno isagaynu ka helaynaa mas'alo kastoo layna weydiiyey jawaabteeda laakiin waxay ku xidhantahay madaa fahmina inta aynu ka garanaynay ku xidhantahay jawaabta saynu kala soo baxay aqoonteenu intay gaadhsiisantay aynu kitaabka u leenahay kaasi waa qodob koowaad aan tilmaamaya diinta inaynu dadka barro حجتي نبي محمد لو سو ديبي كو اوغنو حتى كان رومين ان حجته كو اوغنو اي قران النبي عليه الصلاه والسلام حشان اخر انبياء ان ايمان ساعد بالله صعد اما ميد لا صعد اما لبا لا صعدان حين ودين انبياء ما يقوليسنين ميا مايا بيو شقاده لو دري way qabtay oo maxay shaqada loo diray shaqada loo diray waa dhowr mid uun inay noqoto inay xujada markay dadka u sheegaan inay dadku rumeeyaan kuwa waxa la yiri taskiyatu nafsi iyo tacliim buu sameeyay inay ababaraan oo naftooda tahiraan oo waxyiga baraan oo diinta baraan oo kuwa kalena waa iqaamatu alxujjati calayhim aakhirina inay cudur daar helin waa nabi kan shaqada loo soo diray haday raaci waayaan xujadu ku oogay aakhirana cudur daar ilaahay kama helayaan subhanahu wa ta'ala وحو نبي قرآن إلهي وحو قلت المامية عدنا إنان عذاب وما كنا معذبين حتى نبعث رسول ما عذابنا عدنا إنان رسول صدر الرسول كان هداني الربين فرعون إلهي ووغا إنان الربين محل هو صدر مسين حجدك ووغا قرآن آخرين إنان أوراني وحباني قيمة سوى قادين يوحو قرن ما يناني أوران إذن
xujada inaynu oognaa oo dadka diinta barnaa labada mid uun bay noqon ama way islaamiyo diintay qaadan ama aakhiray cudurdaar waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisaanay cudurdaar ka helaynin kuwaynu dhallayna waa la mid iyo kuwaynu la dhaqanno iyo kuwaynu wada noo dhaqan inaynu xujadaa ku oogno dadka diinta wada barno haddii kale innagaa dee dembaabayna nimankii reer banu israa'iil ee magaalada degganaa ee laga mamnuucay sabtada inay ugaadhsadaan markii lagu yidhi war maxaa wax ugu sheegaysaan maxay yidhaahdeen macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun ilaahay inaannu cudurdaar ka hello xujadii inaannu ku ognay inaannu caddayno iyo haddii dee qalbigooda diini gelayso inay ilaahay ka cabsadaan subxaanahu wa tacaala idan waxay leenahay asalku waa inaynu dadka diintan iyo qur'aanka kan u sharaxnaa u sheegnaa gaadhsiinnaa ku gaala iyo ku muslima iyo ku kastaba waa inaynu isaga ku tasallux waa inaynu isaga hub ka dhigannaa oo uu noqdaa wuxuu uu sheegayaa wixii aynu sax ku garan lahay inta xanuunku ku dhacday saynu u gallaa kow waxaa leenahay dhallinyaradan wareertay ee afkaarta qaldane tirada badan le laga dhaadhiciyey waxay u baahan yihiin cid la niqaashtanta ee in la sii durkiya uma baahna inaynu intaynu caabayno erayno oo foyno maaha laakiin laa takuunuu cawnan lishayطaani calaa akhiikum xadiidkii imaamu axmed soo saariyo qolyo kaleba inkastoo sanadka culammadu ay daciifiyaan laakiin shacayb alarnaawuuti duruqdiisa intuu wax isu gegeeyaa buu taxsiininaya ninkii gacanta la jaray ee uu nebigu ka yara murugooday say sheegayaan kaannaka karihta qaطcahu bay yidhaah ee rasuulkii malaa gacangoyntiisa kan waad nacday wamaa yamnacunii buu yidhi laa takuunuu cawnan lishayطaani calaa akhiikum ama xadiidkii kii khamriga cabbay ee markii dhowr jeer la keenay ee dhowr goor markii dambe ay qaar lacnadeen oo maageen oo ku lahaa innahu yuxibu allaha warasuulah war ilaahay ha ugu kaalmaynina shaydaan buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qodobka labaad waxaan leenahay itaaxat alfursa lishabaabi an yubdi kulla maa cindah inaynu ka warran siino oo fursad siina linkan waxa madaxiisa ka guuxay oo dhan uu soo marnay waa inaanu la qajin hadduu markuu erayku yidhahda afka kaga boodo dee wixiisii wuu la aamusi laakiin way ku duugan yihin waxba kama dawaynin waa ku duugan yihin weliba waxay u badantay inay ku sii badato uun cid dambana aanu wax weydiinnin bale gruubkii iyagu negatifka u sharxayay inuu ku sii xidhmo unoo ay shubahaadka ku sii badiyaan cid shubhadan ka saartana aanu haysanin sida awgeed nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam gaal baa u yimi ay carabi u soo dirtay waa gaal loo soo diray inuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam diinta ka saaro uu ka fiirso cutba bnu rabiica abalwaliid waxaa loo soo diray inuu nebi moxamed diinta ka saaro dabeetana nebiga intuu yimi probosals buu la yimi eniyow dad waxaan doonayso waxaasaanu ku siinaynaa dadkan doonayso kaasaanu kaa dhigaynaa dadkan doonayso laakiin dee ilaahyadan iyadan iyo waxaad warkan aad ka sheegaysaa dhaaf marka wuxuu wadaa in compromise diinta laga galo laga heshiiyo oo isaga iyo nimankii quraysheed negotiation ay wada galaan oo nebigana la siiyo wixii uu baahan karo haddaad boqor doonayso boqor baa laga dhigayaa haddaad xoolo ku doonayso waxa kan annagaa ninka ugu xoolo badan kaa dhigayna haddaad gabdho doonayso inanta ugu fiican baa lagu guurinaya yacni wixii maadiya aad rabto ee nolosha ku saabsan you will get it laakiin waxaanu u baahannahay uun dee inaynu masaa'ilkan ka wada hadallo aad ilaahyada iyo baabkan cayda ka dayso nebigu waxaa iyadoo loo akhrinaya u dhegaysanayay kuma odhanin war bal waxaa gaalkii wuxuu ku hadlaya gaalnimadaasaad iila timi kuma odhan ee wuu dhegaystay markuu dhegaystay uu ninkani warkiisii gaalnimada ha dhammaystay nebigu uma jawaabin markiiba wuxuu ku yidhi afaraqta yaa abalwaliid warkii ma dhammaysatay weli mise waxbaa kugu hadhay buu leeyahy yacni isagu weli rabaa inuu jaan siiyo afaraqta yaa abalwaliid
warkii ma kaa soo wareegay buu leeyahay hadalkii ma ka baxda ma dhammaysata markaasuu yidhi haa markaasuu nebigu aayad qur'aan ku akhriyay suurad suwarka makiga qaybteeda hore ka mid ah ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku akhriyay suuraddii markii uu dhegaystay ayuu nin carbeed afkana garanaya buu hayay wuu isbeddelay dabeetana nimankii carbeed markuu noqday waxay dhaheen wallaahi rabiica ibnu cutbata ibnu rabiica sidii uu inagaga tegey si aan ahayn buu la soo noqday bay dhahay ninkii aynu dirray warka aynu ku dirray ma aha maxaan qisadan uga dan leeyay qisada imaam alalbani wuu taxsiiniyaa fi siiratii waxaan leenahay waxa weeyaan qofkan inaynu dhegaysanno barorta waa ibtilaysan yihi dhib baa haysata laakiin mushkilaadkiisa kan iyo waxaan madaxiisa ka guuxay iyo waxaan uu ismoodsiiyey ama waxaan loo akhriyay inaynu ka dhegaysanno waa mid labaada inaynu ogaannana xiwaarku ee qur-aanka ilahay wuxuu inoo sheegaa ambiye xataa ilaahay wax weydiisanaysa waid qaala ibraahiim wuxuu nebi ibraahim yidhi rabbi arinii kayfa tuxyi ilmowta ilaah waxaad i tustaa dadkan dhinta bal sidaad u soo noolaynayso ama nebi muuse inuu yidhaaho ilaah waxaan rabaa inaan ku arko idan su-aashu waxay doonta ha ahaato waxaynu u baahannahay dadkan inaynu dhegaysanno qur-aanka ilaahay wuxuu inooga warramayaa gaalo badan oo xiwaar lala sameeyo qaar wax diidanaa baa ilaahay wuxuu yidhi qul waxaad ku tidhaahdaa ara'aytum maa tadcuuna min duuni illaahi aruunii maada khalaquu min alard am lahum shirkun fi الsamaawaat iituunii bikitaabin min qabli haada aw ahaaratin min cilm in kuntum saadiqiin ilaahay wuxuu leeyahy waxaad ku tidhaahdaa war bal waxaan aad baryaysaan ee cibaadada ula imanaysaan itusiya dhulkan waxay ka abuureen maada khalaquu min alard am lahum shirkun fi الsamaawaat kownkan dhane sidan u dhisan ma qayb bay leeyihin ma shuraka ilaahay ku leeyihin iituunii bikitaabin min qablu haada kitaab hore waxaan ka warramayo sidan ku doodaysaan sheegaya hadduu jiro keena aw ahaaratin min cilmi ama raad aqoomeedoo waxaa sheegaya hadduu jiro keena yani islaamku cilmi ma diidana laakiin ilxaadku cilmi maaha waa shubahaad laysu geegeeyey saasi awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa waar in lala galo kuwa waxa kana aaminsan ilmahaaga ama ka kugu dhow ama kan xanuunadana ku dhaceen markaad ka dhegaysato wuxuu u baahan yahay inaad maagina haddaad adigu aqoontaa leedayna inaad u jawaabto haddaanad aqoontaa lahaynna inaad u baadi doonto tabiib kaloo daweeya ilmaaga xanuun caadi markuu ku dhaco haddaad anigu dhakhtar ahayn oo daweyn karanin dhakhtarbaod la raadisaa u soo maaha yaa dhakhtarkee fiican baad tidhaahdaa iyo takhasus wadneed yaale iyo waad waraysi tagtaa adigoo raba ilmaha inaad jirradan ka dawayso fakadaalik tanna waa jirro kale uun jirro kaloo ku dhacday adigoon waxba war waxay ahayd inaad u raadiso tabiib kaloo daweeya tabiib alquluub dadka shubahaadka qalbiga bini aadamkaa gala daweeya inaad u raadiso weliba waxaa fiican xiwaarkaasi inuu kitmaan ku dhaco ay jecel yihiin inta badan inaan la ogaanin inay waxay rumaysan yihin waayo cultural pressure baa jira oo inanka caadade reerkoodii caddaabaa walba waxaa rumaysana markaa waxa kan iska qiranaya waxba uma arko innaga waxaa jira cultural pressureku wax jira oo nebigu calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi wuxuu yidhi jaarkaygii baa khaatiga taaganay jaar aad u xun buu lahaa nebigu wuxuu ku yidhi alaabtaada intaad qaadato alaabtaadii guriga intaad ka saarto waddada dhig ninkii sidii nebigu yeelay buu sidii nebigu amray buu aqbalay alaabtiisii intuu soo qaatay ayuu waddada dhigtay dadkii baa soo mara war maxaa kugu dhacay baa la yidhaahdaa jaarkaygaa dhib batayoo dee gurigaygii baan ugay intaa alle kugu ridbay dadkii oo dhan yidhaha waa maagaan muxuu ahaa ninkan saanu dadka u galay ninkii jaarka ahabaa markii dambe u tago wuxuu yidhi waryaha dib kuu dhigi maaye soo haraysa alaabtaada wax dambe kuga yacni ninkan brasharkii mujtamaca beddelay mujtamaca cadaadiskiisii ayaa beddelay
سادرادد الماهن cultural pressure كهايستا بو وحو كعبسي قبا إنو شيغان كري واي وحان لكن والرميسية وقرصانيا والرميسية وقرصانيا دركتي وعبايا هداي ورنقرار كان تهي وصمينيا هداي تهي عقيدة تمو لكن وقرصانيا ولذلك وحا هبان بيدا هذا رقم مسائل خبرة كواي إن حتى هدادو قيسو عد وحا خبير كوا إن اللي بدو دونو دحاحاتو أنا تشيك هدو ديسا يساقيا طبيب كيساسي وايو لغا يابا دا انتاد مالينو قيسو إنو فوكو يرهدو دبتانا وكعو ماها صورتك هادك قفكا كان الشبهات كان واكو بيرين marka wuxuu u baahan yahay muddo in xiwaar u furmo labadooda tan oo masaa'il badan maalinba mid laga doodo oo maalinba mid oo laga yaabo bila inay qaadato laakiin bila kadib inuu qancin karo waana tajriba aan aragnay rag u dhuun daloola masaa'ilkaasi oo culamo ahi dad badan ay diinta ku soo celiyeen oo loo keenay ala hada asaas bay ku daweeyeen inay uun labadooda dooda u dhaxayso aan cid kaleba ogaanin siday u wadeenna ay markii dambe qanciyeen waxaan ku soo koobaya markaa ilaahay qur-aanka wuxuu inagu leeyahy wawxiya ilaya hada alqur'aanu liundirakum bihi waman balag nebi maxamed baa waxa la yidhi waxaad tidhaahdaa wuxiya ilaya hada alqur'aan liundirakum bihi waman balag qur-aankan baa laysoo waxyooday si aan ugu digo idinka iyo ciddii uu gaadhayaba ilaahay wuxuu leeyahy wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah gaaladii la istilay mid gaalada ka mid ah hadduu magangeliya idin weydiisto magangeliya ilaa iyo intuu ka maqlaya ilaahay warkiisa baa rabbi leeyahay subxaana wa tacaala uma abliquu ma'mana ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة ما أهين ما النقطين منك قالت يكو أهل الكتاب كبائني قالوا عودا يدين حمد ودا كبحان ما يسورتك شان إلا يوت من محي بينة ضعت ومحي رسول من الله يتلو الصحف المطهرة رسول حق لك يمي وكنت الآخرين إياه صحف مطهرة فيها كتب قيمة با إلهي سبحانه وتعالى وحن ربعين صوكوبة وحن صوكوبة يوحي يحي شبهات كان مرة بوينا المساجد كان حفظه شبه الهبلة وحاسيد الإشدانية وحاسيد القردية كان إن dadka wuxuu u baahan de kutubta ku qoranta iyo meelaha ku taala iyo quraanka si uu isticmaal lahayn baynu tilmaamayna laakiin waxa aan rabnaa inaan sheegno wax weeyaan war meesha tan shubahaadkaasi waa tiro badan yihiin iyagoo waliba systematic ah oo schoolinka ka bilaabma ilaa iyo jaamacadda uu qofkaasi biicada waxaas iyo ku dhex jirayo ilmahaas idinku masaajidka iyo maqaaxidii lagu murmayay iyo intan baa idinku tagtaan gaal kiina ugu badan ee laba ula shaqeeya buu arkaa laakiin dadkan yaryar waa isku milmeen meelahanay wax ku dhiganayeen iyo meesha inay la joogaan dhibtaasaa haysata shubahaadkaasna waxaynu leenahay waxay dhibeen dadkii aan loo dhigin caqiidadii diimeed oo marka hore aynu moodaynay dadku sidaa ay inoogu midab eegyihiin inay uga caqiide ekaan doonaan oo marka hore inaan xil badan iska saarin xilka ugu badan aynu iska saarray inuu noqdo quraanka sida loo akhriyo inaan wax ka barno jisca muu akhriyi karaa tabaarak buu akhriyi karaa sida loo akhriyo inaan wax ka barno sida loo akhriyo waxaa ka sii muhiimsan sida loo fahmo marka wax ku soo koobayaa darskeenna dhibtaasi waa jirtaa ubadkiina way haysataa waa mid ku fidmoobay iyo mid qarka u saaran inta badbaadisa beersantkeedu waa beersanta yar
taariikhda bini aadamka soo jireenkana waxay tilmaamaysaa dadka aan iyagu wadanin manhaj wax bedasho dadka kale aan bedelaynin ugu badnaan inay 3 qarni 3 jiil inay ku bedelmaan dad adugu sidii saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dad dacwo iyo diin wado iyagu dadka bedelaya yihiin oo manhaj sito oo iyagu wax dhigaya kuwaasi waa group kale laakiin dadkan kale iska hijrooda kolba meel iska dega 3 jiil unbay sii noolaadaan jiilka saddexaad dadku ka mid yahay adugu kaa dhashay isagoo yar khafiifa oo afkiina midhadh ka garanaya waxoogaa cilmi dhegdhegood yarna diinta ka maqmaqlay kaasi ku sii dhala qiyaas muxuu noqonayaa ee meeshaasii jooga kaasi ka saddexaad u dhala xagguu noqonayaa practicalina waa la hayaa eeg muslimiintii dagaalkii koowaad ee dunida tagtay latin america waxaa ka tegey muslimiin aad u tiro badan oo weliba shaam ka tegay dhulkan la yidhaahdo atrak baa looga yaqaanaa xaggaa markay tegeen waayo baasaboorkii cuhmaaniyiintay siteen oo inay turkiyiin baa loo haystaa laakiin waa carab marka laga eego xagga dhaqaalaha iyo waxaa iyo madaxnimada iyo waa madax waa kuwii waddannadan latin america raggii xukumayey carlos mancim iyo hebel yani raggii xukumayey marka xagga lacagta laga eegana waa tujaarta ugu waaweyn laakiin xagga diinta marka laga eego way tirtirmeen حتى مساجده كاليفورنيا مساجدdan ku yaala qaar ka mid ah masaajidii waaga hore muslimiinta hore tagtay ay dhisteen qaar ba hadda parking ah masaajid 7 dabaqa jiro hadda parking ah waa parking gawadhida lagu xaray xagga sarana calaamadihii muslimka ay kursiga waxba ku qoran parking marka dalka kaga soo socdo waxa suran calaamadaha suran islaamiyo tilmaamaya kuway sii dhaleen u iibsaday masaajidkiina ilaa iyagu masaajid ma rumaysanayn daarun awowyadoodii hore ka tegeen bay haydeen waxaan uga dan leeyahay haddii la waayo waxaan cid iska xil saarta oo wax bedasha oo wax dhigta oo dadkana ilaalisa haddii la waayo saddexdaa guruubaan imika idiin sheegaya unbay ka mid noqon doonaan هذا جروب ترند كأن هاي وترند كالصعدة هاي ما كمل نغضها هنا إلهي دفرته إن قومهم كان لقرن يكون بيرته إن درجة أيه وحكى شقي سنة عاصمة وكان دور وحقوله يكبد بادي كرا ضد كأنه أني من إنه كبد بادين كرنا وين إنه ديننا شيءنا إننا يسوع شيءنا كوانا إنه أني منه إنه أشيءنا وإلهي كتاب كي صدق ويارنا وحكستو حنون وشرنا إلهي قرآن كوحكو يري قل هو للذين آمنوا هدى والشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قرآن كاس وحوية هي دك مؤمنين هدى والشفاء شفاء لما في الصدور لابد وحا حنون قلوردن بدوية وهي ربنا سودك النبي إلهي عافماد وحلقة عافماد أنا عقوش هي قلوبته وفيعا ضد لبدا كوالته وحبنا ولا شكله ما ترتو ردن مالي ولا شكله بلايين أي ستر ردن مالي رش واحد ردن لا ضحي كان لبدا كرنو شاهد ختاما للدرس dhibtaa saa jirta dawadiina ilaahay kitaabkiisay ku jirtaa labadaa wax baynu u baahanno siin inaynu samayno marka hore badbaadinno intaanay waxaas ku dhicin iyo marka labaad oo ah cilaaj fiican inaynu samayno sala allahu calaa muxammadin wacala aalihi wasaxbihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد أنت كدب وحانو لأنها مركو قهر رئيس إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسنات كيس هيا له الشيخ مصطفى محاضرة آديات كقيم كوهيد وحينو هيسنا إلا لو دقيقة لو 3 دقيقة إن شاء الله تعالى وح سؤال وموضوع كسابسا
وموضوع الشيخ المكونات المامي عد هيسا مجرتا إن شاء الله تعالى لبدا دقيقة ما شاء الله حقا الدنباء ماشي حاج علي هندي ما شاء الله هاي ما شاء الله horta inaynu isfahmnaba fiican dheefintan sheegaya waxaan ku idhi qofka inaad adigu xiwaar la gasho waxaan kaloo kuu raaciyay bil kitmaan inaad qariso anu kuma odhan tv-ga intaad isugu yeedho maxaa diintu ka qabtaa dheh laakiin waxaan rabnaa waxa weeyaan ilmahaad adigu dhashay mushkiladu ku dhacday saad ula dhaqmi lahayd baynu ka warramayn kama warramayno waxaanu idhi isaga iyo qofka uu xiwaarku ka dhaxaynayana ha u qarsoonaataa ku idhi ma odhan dadka kale ha ogaadaan ama ha la faafiyo mawduucan inaan halkan kaga hadlo waan diiday waayo uma arko dadkani dad mushkiladan qaba inay yihiin waa laga yaabaa meelo ka gedisan inaan hore ugaga hadlay laga yaaba youtube-ka haddaad gasho inaad gasho 5-6 cajiladooda waxaan ka hadlayo waan ka hadlay laakiin waa dad gaar ah waa dadkii waxaan qabay ee xanuunsanayay dee haddaad wax xidhxidhi karaysaanna iskuma baynan soo dhowaaneen dad badan baan marinaya حياك الله حاج الله يرسله حاج عبد الله waxaan malaynaya masaajidkiinan hore ugaga hadlay af soomaaliga iyo waxa ku saabsan oo tilmaamaya qofka soomaalinimadiisa inuu haysto dhaqanka soomaaliga ee asligiina waa diin waalidkan iyo waxa kan waxa keenay waa diin qofku markuu muslim yahay diintiisa haysto ayuu dhaqan haystaa laakiin haddaanay diin noqonin dhaqan cidina ma ixtiraamto haddaanu diin ku baysgaraysnayn oo waxaan kaljarka la yidhaahdo waxyaabuu ciddii doontaa ha haysato wuxuu ku baysgaraysan yahay waa ideology waa diimaha dadku ay haystaan haddaad diinta maydho waxa kale ma hayn kartid sinaba uma hayn kartid waa leenahay soomaaligiinnii xajista dadnimadiinnii xajista diintiinnii xajista intuba waa asal bay inoo wadayihin almodawaayadan dambe cilmaannimadu inay jeceshahay in dhaqanka iyo diinta la kala saaro dhaqankana ay ka soo qaataan muusiga iyo digdigta war xataa muusigu dhaqan soomaali ma aha bigiladii ugu horreeye la tuma hinda inoola timid cuudkii ugu horreeye la garaaca cadan carabtii ka timi iyo soomaalidii la socota inoo keenta innagu jaandheer bay ahayd xataa haddaad dhaqan rabto waxaa la tumi jiray sacab iyo caga dhulka lagu garaaco islaamaad durbaan yar gargaraacan jiray ma jiro حتى موسيقى ولا بدقة الصومالي معها والحدود أنا هالنوض على كل حال دقة الصومالية وحن رميسني إنه دين جاي دين وحي خلاف سنة ونقى من نقى السلام عليكم بارك الله فيك إن شاء الله تعالى وقتك صلاة دقيقة تاجروا للجاري